gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ay wehliyaan mas'uuliyiinta maamulka deegaanka Gubadley agaasimayaal ayaa xarig ka jaray suuqa lagu iibiyo xoolaha iyo dugsi waxbarasho oo laga hirgeliyay deegaankaasi munaasabadan xarig jarka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa dadka deegaanka Gubadley iyo sidoo kale maamulka deegaankaasi ugu horeen waxa goobta ka hadlay Cabdullaahi Nuur oo gudoomiyaha deegaanka Gubadley isagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka sheegayna in baahi badan shacabka deegaanka ay u qabeen xaruntan xoolaha lagu iibinayo iyo dugsiga waxbarasho gudoomiye dadkaagii oo ku jecel oo deegaanka Gubadley waxay ka maanta waxa ugu timiday inaad uu xiriga uga jarto iskoolkii weynay ee Gubadley ee ugu horeeyay iskoolkii ugu horeeyay ee Gubadley laga hirgeliyay waxaad nasiib u yeelatay inaad maanta xiriga uga jarto bulshadii Gubadley iyaguna waxay nasiib u yeesheen gudoomiye hor inuu hor yimaado iskoolkii waxbarashada Gubadley ugu horeeyay ee laga hirgeliyay ee dawladdu dhistana aad xiriga uga jarto mar koobaad iyo mar lamaadba gudoomiye soo dhawow waa bulsho u diyaarsan inay dhistaan dawladnimadooda inay garab istaagaan dawladnimada waxaad ku soo dhawaanay Gubadley oo saldhigii u dhisan yahay degmadii u dhisan tahay xarumihii dawladda dhammaan u dhameystiran yihiin inta dhimanna adeegka sugayaan gudoomiye waana mahadsan tahay soo dhawow dhinaca kale agaasimaha waxbarashada ee gobolka Banaadir isna la hadlo warbaahinta ayaa tilmaamay in waaxdu ka tirsan yahay ay kormeer badan ku hayeen dugsiga waxbarashada isagoo sheegay in ay qayb ka tahay dugsigan maanta la furayo xarumaha dugsiga ee gacanta ku haysa hoosaga maamulka gobolka Banaadir noo farxad maanta inaan kala soo qayb galno furitaanka gudoomiyaha noo furayo iskuulka madana gudoomiyaha iskuulka waxa ay 3 goor maanta ay 3 ku tahay markii koobaad waxaan u imid inaan qiimeeyo xaaladiisa asagoo muddo hore la dhisay waxaana dhiseen qoladii OIC islaamka ayaa dhiseen wasaaradda ayaa ka shaqeysay muddo hore kadib asagoo tir u baahanaan imid waxaan u galnay annagoo fuliyayna amarkaadii in iskuulaadkii 24 aan la soo wareegna lagu daro sanadkan 2020 hadda furmi doona in lagu daro iskuulaad kale waxbarasho bilaasha bixiya inaan ku darno kuwii horena lagu soo wareejiyay si ay deegaanada uga faa'iideystaan dadka ku nool gobolka Banaadir waxaan raadinay ciddii dayactiri lahayd waan helay waxaan noo dayactiray hay'adda Consign aan noo dayactirtay markii dayactireenna waa imid si aan dayactirkii ay sameeyeen aan u hubiyo waan hubinay in dayactirkii sameeyeen وإن دمينا هوبيني وحاسكو داينا سندوكسيات حتى دمانا هي لبدا بلا كدمنتا إلا فرو لكن ظروف جري وسورتقالي ويسي وحان رادينا إن سندوكسيات كان وفورما سكول كان وكمدي ميلها برتلمامات كوا قبل كبنادر وحبرشي سبلارنت وحبرشدا بلاش كأه إن أي كم النقطة ديجان كان يديجان هذا كلا أما دقموين كلا قبل كبنادر ay gaarsiisaneen waxbarashada bilaashka oo kamid yahay Gubadley ay kamid tahay gabagabadii munaasabada waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo sheegay in labadan mashruuc ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadley uu wax weyn ku soo kordhin doono dhanka ganacsiga iyo horumarka waxbarashada deegaanka isagoo ballan qaaday in gobolka Banaadir uu shacabka deegaanka Gubadley kala shaqeyn doono mashaariicda lagu horumarinayo deegaanka waxa maanta farxad nooca sharafna nooca inaan xarig jarno suuqa xoolaha ee Gubadley ee loo yaqaan suuqa dayax kadib markii sanadkii hore aan dhagax dhignay suuqan sida uu sheegay agaasimaha xiriirka degmooyinka xilligii dawladda Carte ayaa la dhagax dhigay oo wasiirka arrimaha gudaha oo adaar dayax sidaas dayax loogu magac daray asayeeshee colaadihii soo noqnoqday darteed ayuu u baaba'ay suuqan oo u noqday meel hawd ah oo aan wax dhaqan lahayn asayeeshee bulshada deegaanka Gubadley iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashaday ayaa suuro geliyay in dib loo dhagax dhigo
loona dhiso suuqa xoolaha ee Dayax ee deegaanka Gubadley. waxaan rabaa inaan halkaan uga baaqo dadka xoolaha keena gobolka Banaadir oo sida iibka u keena. waxaa la farayaa inay xoolaha ay keenaan suuqan laga bilaabo berritoba haddii aan leedo. suuqan waa suuq danguud ah ka mid ah suuqyada dawladda hoose ee hoostaga maamulka gobolka Banaadir. xoolaha sida aan ka warqabno goobo yaryar oo garaashyo ah iyo meel la mid ah oo baribaati ah ama si gaara loo leeyahay ayaa la geeyaa oo loo iib keenaa oo runtii aan dhammaystirnayn suuqnimadoodu. suuqan waa suuq weyn, dhammaan qaybaha xoolaha oo dhan sayladii lagu iibgeyn lahaa ama lagu beecin lahaana ay u dhammaystiran tahay. Nuur Cabdiraxmaan, Nuur, Voice of Somalia, Muqdisho.